Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada. Waxaan rabaa inaan ka hadlo shirkii maanta dhacay xafiiska ra'iisul wasaaraha oo loo qabtay oday beeleedyo ka socda qabaa'ilo banaadiri ah oo ay u badan yihiin qabaa'isha aan kuraastu ku haysan baarlamaanka ama aqalka hoose. Insha Allah kaasaan ka hadli doonaa. maanta ra'iisul wasaaraha ayaa xafiiskiisa ku qaabilay. Marka ra'iisul wasaaraha hadaladiisa aan si kooban u tataabanaa. ra'iisul wasaaraha wuxuu diiday maanta wixii ay ula hortageen in uu go'aan ka qaato. Marka waxay ay ula hortageen maxaa waaye? waxay ay ula hortageen waxa waaye ama qodobka ugu muhiimsan waxa waaye in doorashada oo 5 kursi laga dhigo 5 kursi u tartamayaan 49 qabiil. 5 kursi u tartamayaan 49 qabiil. qodobka weyn kaas way waxa loo socday dhammaankaas ah. maanta jaanis soo baxay ra'iisul wasaaraha lagu kulmo. marka ra'iisul wasaaraha wuxuu soo watay guddiga xalinta khilaafaadka, guddiga fit heer federaal, guddigii kaleentay maxaa la yiraahdaa siid heer gobol soo watay gobolka Banaadir. sida uu sheegay inay shirkaas iyo wixii looga hadlay marqaati ay ka noqdaan. marka wuxuu kaloo tilmaamay guddiga siid in ay la shaqeyn doonaan guddiga fit ama guddiga heer federaal la shaqeyn doono, khilaafaadkuna la shaqeyn doono, iyo koox ka socoto xafiiskiisa inay la shaqeyn doonaan. marka wada shaqeyntaas kulley wax cusub maaha, horey u jiri jirtay, sheeko cusub maaha. waxaana laga wadaa hufnaanta doorashooyinka, doorashada inay dhexdhexaad noqoto, doorashada in loo cadaalad falaa tartamayaasha ama murashaxiinta iyo wixii lamid ah. waxaa kaloo jirto ra'iisul wasaare inuu tilmaamay inuu go'aan soo qaadan doono. marka laakiin maxaa go'aan laga qaadan doonaa? shiraraha hor u soo dhacay. shirarkaasna waxaa lagu soo qeexay habraacyadii doorashooyinka ay ku shaqeyn lahaayeen. heshiisyaha la soo gaaray 17 September ugu horeysay 2020. haddana shirkaa la qabtay 2020 iyo 2021 27 May 2021. haddana shir kale ka dambeeyey 22 August 2021. haddana sanadkan oo cusub January waxaa dhacay shiraa dhacay 2022 shiraa dhacay. marka qodobadii shirkaas kasoo baxay, heshiisyadii shirkaa kasoo baxay, guddiyaasha waxaa la amray siid fit iyo xalinta khilaafaadka kulli waxaa la amray inay si buuxda u hubiyaan heshiisyadii lasoo gaaray. marka heshiisyadii soo gaaray maxaa kamid ah? heshiisyadii lasoo gaaray waxaa ku qeexan guddiga xulista ergooyinka oo codeynayo iyo murashaxiinta kulli inay ka tirsan yihiin beesha kursiga ku fadhida. haddii heshiisyadaas ay ku qoreen wax khilaafsan, taas hala keena la soo cadeeyo. ra'iisul wasaarahana heshiisyaashaas meel ugama socdo. marka qofkii fahmi karo saasayna wax ay u shaqeynayaan. ra'iisul wasaaraha go'aan asaga u gaar ee keligiisa uu arrintan ka gaari karo ma jirto. waxaa jirto madal la dhahayo madasha qaran. maxaa la yiraahdaa? waxaa jiro golo la dhahayo golaha wadatashiga qaran oo ay ka kooban yihiin madaxda maamul goboleedyada. waa taqaaniin idin fasirayay. ra'iisul wasaaraha uu ku jiro iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa magaalada. intoodaas heshiisyadaas kulli oo la soo gaaray
maxaa la yidhahda waa heshiisyo ay ka shaqeeyeen golaha wadatashiga qaran. marka qaran markii lagu dhaho wadanka dalka dhan waay, madaxda dalka dhan waay, maahan maxaa la yidhahdaa ra-iisul wasaare keligiis maaha, ra-iisul wasaaraha iyo maaragtay kooxda xafiiskiisa maaha maaragtay ra-iisul wasaaraha iyo maaragtay guddiga xalinta khilaafaadka iyo guddigii seat iyo guddigii feed keliya maaha. waxa waaye golo wadatashi oo qaran waay. heshiisyadaasna ra-iisul wasaaraha ma horboodi karo. marka go-aanka uu soo gaaraya maxaa ra-iisul wasaare go-aanka uu soo gaaraya waxa waaye ra-iisul wasaaraha inuu dhaho maaragtay heshiisyadaas meel ugama leexan karo. haddii kale noqoto in wax laga bedelo heshiisyaashaas, maaragtay golaha wadatashiga qaran haddii baa laysugu yeero, marka asagoo doorashada laga shaqeynaa le maaragtay xal u helaysaa la raadinaa iyo caqabadaha maaragtay aan xal u raadinayna iyo kaas le maa lagu jiraa. hadda waqtigaa loo qabtay, waqtigaasna maaragtay in lagu soo afjaraa la yiri doorashooyinka maaragtay beesha caalamka fed ah bay ka taagan tahay. maxaa la yirahdaa shacabkii soomaaliyeed, bulshadii soomaaliyeed, shacabkii soomaaliyeed fed ah bay ka taagan yihiin. waxaan dhaqaaqila. marka waxaaba lagu yiriba heshiisyadan waxaaba lagu qobanay oo lagu yiri xal u helis caqabadaha fulinta heshiisyada soo gaaray, yani in xal loo helo caqabadaha hor istaagay, in xal laga keeno. yani waqtigaa la qabtay doorashada waa dhamaystirmi weyse, waqtigaa la qabtay waa dhamaystirmi weyse, waqtigaa la qabtay waa dhamaystirmi weyse. marka ma aha maaragtay in heshiisyadaas la baabi'iya ma aha. heshiisyadaas in la baabi'iyo ra-iisul wasaaraha muu socdo. mafahanti? heshiisyadaas waa lasoo xeeraha laga soo saaray, 4 jeeraana dib loogu noqnoqday. 2020kii 2021kii 2 jeer iyo sanadkan maaragtay hadda cusub kama dambeysna waa. mafahanti? golahana waxaa la yihahdaa golaha wadatashiga qarna la yihahda, qaranka dhan waay. ayakaa maaragtay kusoo heshiiyey. ra-iisul wasaaraha uma socdo inuu wax ka bedelo, inuu socdo wax inuu ka bedelo. maanta waaba idin cadeeyay. muxuu yiri hadalkiis maxaa kamid ahaa? wuxuu yiri maanta meeshaan ma u joogno, ama maanta ma ahan go-aan inaan go-aan qaadanayno, inaan go-aan ka qaadanayno 5taas kursi inay noqdaan kuraas oo loo tartansiinayo 49 qabiil. yani 4 kursi min 10, 1 kursina 9. saas camal waay. go-aan ma ka qaadanayno yiri. mustaqbalkana go-aan maba ka qaadan karaba. hadee madashiya hortaagan, madashiya maaragtay ka sugayso doorashooyinka wixii lagu soo heshiiyey in lagu dardargeliyo oo waqtigii loo qabtay lagu dhamaystiro, lagu dhameeyo. ma fahanteen? marka maxaa la yihahdaa sida asaga uu sheegay ra-iisul wasaaraha ha la isdejiyo, saasna waay. xaqiiqadana saas waa la isdejiyo. marka waraysiyo badanaa telefishinka ka dhacay oo ay maaragtay sameeyeen guddiga feed. afhayeenkii guddiga feed laftigiisa waraysi uu ka sameeyey tv-ga wuxuu yiri doorashada ha usoo diyaar garoobaan xildhibaanadii hore, ha usoo diyaar garoobaan xildhibaanadii hore ugu fadhiyey kuraasta, xildhibaanadii hore kuraasta ugu fadhiyey ha usoo diyaar garoobaan inuu la tartamo qof beeshiisa ka mid ah, qof beeshiisa ka mid ah inuu la tartamo. marka qodob kale jiray oo dadka ay ku wareersanaayeen oo dheer jeer wax la iska weydiiyey. qodobkaasna wuxuu dhahayay doorashada in loo qabto beelaha ama jufooyinka kursiga wadaaga in doorashada loo qabto. marka beelaha ayaa laga wadaa, qabaaishaa laga wadaa, jufooyinkaa laga wadaa, qabaaishaa laga wadaa. beelaha ama jufooyinka lagu yiri, ama jufooyinka haddii maaragtay dadaa beesha u yaqaano qabiil, dadaa maaragtay qabiilka u yaqaano beel,
dadna maaragtay qabiilka jufay dhahaan saa u taqaanid beelaha ama jufooyinka saa u taqaanid ama beel ma u taqaanaaday mise jufa ma u taqaanaa qabiil laga kulligood doorashooyinka maxaa la yihahdaa beelaha kursiga wadaago marka haddii 2 beel ama 3 beel oo banaadiri oo kursi wadaago oo sifo oo sharci kursi ku wadaagan haddii ay jiraan hala soo cadeeyo haddii aan la soo cadeyn karin soo ma walaalayaal idinkana isdaalinina madaxda maaragtay qarankana haddii aad daalinina ra-iisul wasaaraha goonayna ula baxdiin maaragtay heshiisyadii la soo gaaray maxaa la dhahaa golaha wadatashiga qaran ma burin karo inuu maaragtay maxaa la dhahaa guddiga heer federaal iyo guddiga heer gobol iyo xalinta khilaafaadka inuu gooni ula baxo go-aan keligood saas ma kusoo gaari karaan infant ra-iisul wasaare laftigiisa oo ogyahay hadhowdina wuxuu go-aanku uu soo gaari doono maxay noqonaysaa inuu heshiisyadii ka bixin heshiis oo lagu daale 2020 haddana 2021 hadda dib loogu noqdo haddana 2021 haddana markale dib loogu noqdo haddana hadda dib maaragtay loogu soo noqday January kulli maxay ka tarjumayeen kulligood waxay ka tarjumayeen xal u helista caqabadaha fulinta heshiisyada in xal loo helo caqabadaha hor istaagan in heshiisyadaas la fuliyo in xal loo helo kulli saasal kii ugu dambeeyay saasal loo qabtay heshiisyadana maxaa ka mid ah heshiisyada waxaa ka mid ah guddiga xulista ergooyinka sida ra-iisul wasaaraha uu sheegay guddiga xulista ergooyinka yaa guddiga xulista ergooyinka waxa waaye 3 oday iyo 2 qof oo bulshada rayidka oo ka mid ah ama bulshada rayidka mataliso labadaas qof mid ka mid ah haweeney way dumar way ya marka guddiga xulista ergooyinka la yiraahdo maxay soo xulayaan waxay soo xulayaan ama ay maaragtay soo ansixinayaan ama ay diiwaan gelinayaan ama soo ansixin si lagu diiwaan gelin lahaa xubnihii codeyn lahaa waxaa loo yaqaana ergaa loo yaqaana marka guddiga xulista ergooyinka iyo murashaxiinta inay ka wada socdaan ama ka tirsan yihiin beesha kursiga ku fadhida heshiisyada kulliga ku qoran tahay bax wax ka duwan keen baade bax wax ka duwan keen hadda aniga ma waxaan u fadhiisaynaa ra-iisul wasaaraha inuu go-aan ka soo gaaro heshiisyadaas inuu buriyo. السلام عليكم.